بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ليس سلام توقو قال سند بلشوين تسوماليت كل سلام يا waxaan rabaa xog xasaasi inaan bixiyo maanta xogtaas oo ah arrimaha Jubbaland iyo Kenya iyo ninka xoog ku haysta Jubbaland hogaamiyaha Jubbaland sheeganay inuu yahay qodobka koobaad waxaan rabaa inaan maamaha ku bilaabo maamahdaas oo ahayd nin geel lahaa oo Soomaali xoolo dhaqatay ahayd geel badan lahaa geel wanaagsan lahaa baariti qoori qurbac wanaagsan oo soo dhalay qoori u rabay hal wanaagsan ay dhashay ayuu kaga dhacay cudur leeyahay Eldun eheladiisa oo madwayr qurbaca Eldun oo qabaay ka qaba geel aniga qurbaca iska leeba ma aqaan maxay idinkeedan bar weeyir inuu Eldun qabo subax dambe uu arkay qurbac waxa dhulka ku jiidiyo geel gaari la ku qariyo Eldun aad qabtaa saaki geel waa laga reebay waxaan rabaa waxaan qarinayaa inaan banaanka soo dhiga dhageysta marka dhagaha furo Soomaaliyeed Axmed Madoobe waxaan rabaa inaan asaga marqaati gashto anigoo ah maanta oo ay tahay taariikhda labada bisha koobaad 2021 anigoo ah Maxamed Nuur Buule wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhirta daaqa dawlad goboleedka Jubbaland ahna xildhibaan Jubbaland ah waxaan rabaa waxa aan bandhigaya inaan bandhiga asaga kalafay oo laba carab la noqday oo goob walba tagay oo meel walba been ka sheegay beentiisi iyo runtiisi inaan idin kala cadeeyaan rabaa maanta oo ay tahay waxa la yiri beelow nin dhintay iyo nin dheer buu marqaati gashtaa waxa kale oo Soomaalidu ku maamaadaa xaasidkaada oo aqal wala marqaati gashtaa kullee aqal ma Axmed oo haduu aqal yahay fagaarooyinka waxa hadda askaga hadlay kaga moo hadleen laakiin asaga marqaati gashanay Ilaahay kana sameystay asaga iyo midka ku xigeen ku ah shahaado suurka ah oo kursigiisa labada laga dhigay dawlad goboleedyada kale laba kursi oo ku xigeenna ma jiraan la sirfi kursigiisa oo raaliga ku ah oo constitutionki ama xeerkii Jubbaland wixii uu qoray waxaan ahayn meesha ku fadhiyay iyo laba wasiir oo kale annagoo ah ayuu noo yeeray subax wuxuu nagu yiri nimayho jannada Soomaaliya waa Jubbaland dawlad guunaan xiriir la leenahay tacliinteedana ay guun tahay dhaqaalaheedana uu guun yahay dawladdaas waa Kenya aan ka sii jeesano Soomaaliya aan u sii jeesano dhanka Kenya aan ku darsanna waa janno dhulkeena warshado iyo beere iyo wax soo saar iyo wax walba uu leeyahay waxaan ogahay jilib iyo Kismaayo waa 120 kilomitir toddoba warshadood ka dhisneed markii dawladda Soomaaliya dhici jirtay wixii wax ka sii daran iyo wax ka badan oo wada janno ah la soo saaraya iyo shidaalla bad iyo biriba xaggan u jeesanayna Soomaali qabqabteedii qaylideeda aan iska dayn waa degdegayo wixii ku jiri maan suguni ficila ila kacay oo waxaan iri Axmedow ma kilinka inoo distin aan raadinaan leen annagana adna masaaka leeda Kenya aan raacno oo maxbuusti ay ku qaadaysay sakeelada xaarka aan noqon saasan naleeda saak wuxuu ugu yiri adoo nool inaan janno ku geeyaan janno nolosha inay janno kugu imaadaan rabay konton sano hadda kadibna wax lagu fahansiin doono ma salaam waa kacay fadhigii waa noo kacay kuwii kale ma ay hadle ayagana marqaatiga ay Allah nasameystay Axmed Kenya qabiy qoraal uu la galay inay Jubbaland kamid tahay gobol kamid ay tahay ama kilin kamid ay tahay Kenya qodobkaas qabsada horta daadan ogaan Soomaaliyeed dalkaas heshiisa lagu galay waxaad ku fahmi kartaan oo aad ku ogaan kartaan oo fiirsada hadalkaas markuu aniga iga yimid waxaa lagu bilaabay duqeyn ateenooyinkii ka shaqeynayay gobolka Geda iyo Jubbada Dhexe meesha la yiraahdo Jubbada hoos hal ateene lagama gooyin waxaa laga bilaabay Wiicgaroon waxa lagu xijiyay Gariley waxa lagu xijiyay Caws Quran waxa lagu xijiyay Xiisuguur waxa lagu xijiyay Dhamas waxa lagu xijiyay Lakoole wax alla 30 kilomitir meel u jirta balaxaw iyo meesha aan idin sheegaya oo diif korkeeda inta ka dhaxaysa baa la jaray ateenooyinkooda waxa la isu sheegay dad iyo dunyaba dhulka la sameeyay si loo duqeynay heer dabka la shidan waaya la gaaray waxa la isu sheegay meeshaan madacade ka jiraay garaac aan isku ogolaysiin waxaas moog yahay Axmed
xarig gumaysigu ku dhashay xarig gumaysigu ku soo karay haddana gumaysiga dabada kula jira wuxuu moodayaa sida asaga loo gumaysan jiray in dadka Soomaaliyeed loo soo gumaysto or dadkan waxay diideen Talyaani iyo Ingiriis gumaysan way oo cagtooda gelin way oo isaga tagay markay noogeen wuxuu moodayaa dadka garaaca iyo xoolaha laga laaynayo iyo duqaynta atoonooyinka la jara inay idab ku yeelanayaan ku raacayaan oo shahaado suur ku noqonayaan oo Kenya ay ugu noqonayaan raacid war annaga dadkanaga iyo dalkanaga u raadinayna dad kale meel aan uga keen taas halkaas ay taala waa qodobka koobaad qodobka labaad wuxuu lahaa waa leela dirare ku cambaar la leega dhigi inta la yeelay farmaajo is dhisa laba carab la way ilaahayna kama baqay noocay oo fircoon u hadli jiroon oo hadla fircoon wuxuu dhihi jiray hadalkayga hal qaadana hadal kala ma jiro cid kale oo hadalkeena kartana ma jirto axmed waa noocay fircoon hadalkiisa Jubaland hadalkiisa bas ka soconaya qof kale hadli kara ma jiro anuu bigu yiri anaan u weyn anaan u yar kayga ninkan sida cadiis ku qaadanin Jubaland jooga ma hay moodo joogay sootii fircoon ma hataas nabi muuse xagga dhigayna waxa dheer bil iyo 14 casha 42 darawal oo baabuurta tiknikada wata training dagaal la barayo lagu barayo guriga badda oo ay Soomaali wada taqaan bil iyo 14 casha kadibna training-ka asaga u soo xiray hadda markii uu dambeeyso ka imaaday imaaraadka Kenya tago sabeeno joogo soo galay asaga u xiray saddex habeen markuu la bariyay oo isla joogo soo wareysanayo ogaaday uu training-ku xiray baabuurtu waxay yaalaan shir kale furayaashoodin wiil buu awl u dhigtay haddana asaga la wareegay furayaasha darawaliintii magaalada hadda loo diray waxa loogu dirin waa idin sheegi baabuurtaas kolonyaa loo diyaariyay dhoobley inay tagaan qardajaax galaan wajeer ka galaan balad xaawa ka wareeraraan madheera saasa loo diyaariyay baabuurtu 160 ciidan ha la qaaday 90 kala ku xigtay 90 kala ku xigtay gaadiidkana la rabay in laga dabageeyo markii laga soo saara heshiiskii filla Soomaaliya kadib inta la diyaariyay idin sheegaya dadku wuxuu ugu sheekaynayaa waana la soo weerara iyo qola inta weerar ka soo rewaamihi ama dadkii deegaanka ahaa markii uu ka dhaadhicin waayo ka ciwaayeen wuxuu u bedelay arinta inuu asaga u weerar taga gobolka Gada kadib si dadkaas ay u caroodaan oo dadka walaalaha oo kala ay ayaga u soo weeraraan oo leeyahay ogaadeenana soo weerar ama absamaana soo weerar waraabsama iyo mareexaan adiga isku ma diri kartid mana kala celin kartid waa dad wada dhashay waa dad ilaahay wax isugu daray waa dad wax wada leh waa dad ay wax ka dhaxeeyaan isku mana dhacayaan isku mana dhici doonaan dunuubta iyo dambiga aad galayso ilaahay ka ala xisaabtamaya meel iska dhig xisho allana ka xisho umadiisana ka xisho waxa inta dheer qofaad ka xaniin badanta ma jiro wala iska ka dhicina saad u fikiraysa si laba jibbarkeed ay dadku wada fikirayaan waan iska warqabaan Kenya iyo adiga inin daba dhilfo jaajuus dawlado kale waa midna Jubaland dagaalka ma ridi karaan mana ka qaadanayaan tan kale culimada Soomaaliyeed waxay og yihiin Ahmed inuu 30 sano jaajuus ah waana qarinay waxay u sheegayeen in ma qaal ana sheegay ayagana way ka marqaati furi doonaan Ahmed maalintii u horeysay asagoo bambaasa miis kule markii Morris la dilay Sheikh Xasan Turki Allah u raxmadee Kemboni asagoo joogo waxa la yiri yaan u diri karnaa meesha oo xogteeda dhabta keeni kara doomaa loo gaday oo gaalada u gaday markaas la ganacsadan ma ahayn jaajuusnimo ku joogo subaxii dambana wuxuu isku milay oo busto u gashtay midowga maxkamada markii la jibiyayna 7 asaga ku ahay 7 nin oo kalena waa la dilay asna waa la soo qaaday soo dhaawac maxaa loo soo qaaday ma kuwa kala laga jeclaa waxay masaare imaad goyseen gibilkayga kugu jira waxa asaga loo soo qaaday oo gaal asu soo qaado gaal kale ugu dhiibay ma garan kartiin idin wuxuu tacliilinayaa dalka iyo dadka iyo diintaba uu ka jaajuusaya waana og yihiin dadka wadaadada oo maalintaas uu isku dhaxqarinay kuwa badan oo isku dhaxqarinay idinkooda ogtiin waa jiraan waa marka xaqiiqada laga hadlayo hadaadan ogeyn Ahmed adiga inaan sidaan aad isu taqaan si aan ahayn in lagu yaqaan hadaad u haysata sidaad isu taqaan ma waa sida lagu yaqaan dadkan sidaan aan ku sheegay ku yaqaan ay yiraahan
وعل فلو حنتي سمم موجي دتك كم معنا وعل حنتي سمم موجي هذا الحنت هذا من موجودي عبايس دقتر مركو إذا ليه قنصليدا سمي سنكر أنت عايز حدود دي إيه القنصليدا حدود كل سمي سنكرتك اسمها تكبح العادة 30 كيلومتر حقهم بدها فكرت 10 كيلومتر حقهم بدها فكرت قبل كجلو ويقول سدولة الله هاي وحكومة يسدد بقولوا كيلومتر الله هاين هلا بينكم هذا هويين وماشي الله ده بل سومالي ها مقاشو مرقاتها كاهته dad madaxweyne dadkii uu xukumay qaybna way ugu soo duuli qaybna way rabtaa xageed ku aragteen adduunkii muslimiin gaal cid ay ka timid ama laga maqlay ama lagu sheegay cid cadeyn karta ama saaki sheegi karta ma jirto waa ninka laga haaya qaybna way ugu soo duuli qaybna way jeceshay dadka markuu dadkii lahaa way jecelyihiin uu kicin wayna asaga duulaanka sameynaya saaki Kenya waxa laga keenay daraad markuu u xiray nimankan tareerinka مولانا نيل راهو تشاتوس ها ولو سو ديري جراي ماد waxa la yiri nimanka dhalinyarada jidadka galay baabuurta ma tagi karta dhobley maxaan sameeynaa مولانا yiri marka ma diyaarinayna marka ban ku keena markabkaas laga saaraa dekedda Kismaayo 42 baabuur laama laga dejina waxa laga soo bixinay haluuqo waxay soo mariyaan faafi waxay soo mariyaan dabadheer waxay soo mariyaan caalin juqur waxay soo mariyaan xagar dheer waxay sii mariyaan dhagaxley biimadoob ay ka dhacaan banaanay ay jidkan weyn oo libooyo ka imaado abaqa baroon uga dhacayaan oo wajeer ay ka gudbiyaan madheer ay balaxa ka weerarayaan baabuurta saasa loo diraa Soomaalida ma ogo busto sukin saara diyaar waaya wax cad waaya waa waxan kitaabku mara waa wuxuu Ilaahay marqaati ka yahay waa waxay reer Jubbaland og yihiin waa wax la wada og wax qarsoon maaha waa bariya sacab lagu ma qarin karo haduu haysta ama ay Soomaalida inay ogeen uu isu maleynaya Soomaaliya ogaad horta arintaas qodobna waa qodobkaas qodobka kala bad sida heshiiska qabi qoraaleedka loola galay Jubbaland heshiis qabi qoraaleed oo la galay waxad way Kenya heshiis qabi qoraaleed oo la galay wuxuu intaan u marayana waxa weeyaan oo intaan dagaal u marayana inay Jubbaland raacdo Kenya xaafad Kenya kamid ay noqotay Jubbaland gobol Jubbaland kamid gobol Kenya kamid inay Jubbaland noqoto ayuu intaan u maraya waxa kale oo idin sheegi oo xaqiiqo ah oo cad oo ka hadlay inuu laba carab baalka jirjiroolaha maartay inuu mar casaan yahay mar madow yahay mar blue mar cagaar mar white tabtaas way wuxuu lahaa xuduudaha dawladda iska leh war waxaan isku qabanay oo maalintii u horeysay aan isaga horimaadnay xamse markaad u magacaabayso gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ma ku iri xuduudaha ilaahay baa marqaatay ka ah dawladda mas'uulka ay adika mid war dawlad ma naqaan qodobka 93 xeerka Jubbaland wixii loo jibinay oo aan shirka jaraa'id aniga xildhibaanada kala ka qabanay waad ugu tiri albaabaad ugu furtay Jubbaland nimaan adi ahayn kama hadli jirin haddaad ka hadash hadda si hadaan ku dila ma in liika qadqaasa ay kula tii u lahaa agma dhiga iga duubay codka xildhibaanadana ka qaaday oo London jooga baa wareysiga naga qaaday waxay ahayd xuduudaha shalayna wuxuu lahaa dawladda xuduudaha shaqo ku leh marna waxaad leedahay dawladda shaqo ku leh marna waxaad leedahay dawladda ay weerarayso marna waxaad leedahay aniga ambaar li saare warada xajiri ninkii ebel waa lagu cayay adaa iscabay warada dadka iska takooray inaad istakoorteen waxaad ku ogaani inta maamul goboleed oo jirtay gobolka Banaadir ma farta lagu fiiqa hatta dhagoolkii yiri inaan gardarana waxaan ku gartay dadka farta igu soo wada taagay dhagoolkii intaas gartayn hatta mitid adiga aqarana wax kuma garan doontid adduunkana Ilaahay aqliga waa ka qaaday oo garashadaadi wuxuu Ilaahay ka dhigay kursi iyo dhuuntan wax la mariyay ee qaacnimo iyo jaajuus diintaadi iyo dalkaaga iyo dadkaadi ka jaajuusto gaal u jaajuusto sidaasan in kugu cadayna Soomaaliya inuu ku sifaysan yahay ninka xukunka fircoon uu ku haysto Jubbaland oo uu leeyahay ninkan aniga wax u sheegin ama waxaan aniga sheegin laga ma sheegi karo gobolkaas gacanta kuma jiro Jubbaland leeyahay Soomaaliyeey war hadday Soomaalinimo jirto gobolkaas gurmadu u baahan yahay dadkiisa dalkiisa diintiisa badbaad ay u baahan yihiin meeshay badda marayso maraya meeshay badda marayso maraya wallaahi waa magaca Ilaahay waa tagaya gobolkaas hadan hadda la ceyminin oo Soomaali u gurmanin aad baad u mahadsantiin Soomaali